بسم الله الرحمن الرحيم كلنت وعنا ونكسن دمان داود يالمن كستو جوجتاني سي كستو نو داونيسان وكلن ير أما باق لو قدر يو دمان نودونada iyo beelaha iyo soldaanada jareer weyne ee degaya sagaalka gobol khaasatan gobolkan shabeelaha dhexe xaruntiisa magaalada madaxda Jowhar baaqan wuxuu ka socdaa gudoomiyaha dhalinyarada reer Jingmobe iyo gudoomiye ku-xigeenka iyagoo baaq u diray dhamaan nabdoonada ku sugan Jowhar iyo maxaan ku raadaa suldaanada bees jareer weyne xilwaanada bees jareer weyne ee ku sugan ka shaqeeya dawladda guud ahaan dawladda federaalka baaqan wuxuu ku aadan yahay ama ka dhan yahay garoonka cusub ee laga furay magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle kaasoo lagu magacaabay Maxamed Dheere marka gudoomiyaha ururka horumarinta dhalinyarada reer Jingmobe oo ah Maxamed Axmed Fuleel oo ila fadhiya iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cabdi Cumar asagana barnaamijka qayb iga noqon doona ee bakara noqon daawadayaal aniga aad in kaga mahadcelinayna qaab qurux badan noo daawanaysan meel kasta iyo Facebook iyo YouTube-da aad yani aga maasantiin markaan hadal badan haan kuma jiro hilmaamin hadal kuma jiro markaan waxaan hadalku dhiibayaa gudoomiyaha dhalinyarada reer Jingmobe Maxamed Axmed Fuleel soo dhaw ودوهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبعد هل كان أيام وحن باخو درينا أنا جوا قدوميها أورك ورماريتا دليل الجنوبي باخا سوقرنا ninka ku socdo macnaa gobolka shabeelaha dhexe maanta lagu magacaabay eelboorkiisa Jowhar Maxamed Dheere oo ahaa macnaa maamul goboleedyadii Soomaaliya gobolka shabeelaha dhexe ee degmada Jowhar inaan ka soo horjeedno macnaa boorka iyo xasuus qorka macnaa meesha loogu soo dhigay in uusan ka shaqeynaynin meeshaas dhulkaasi waa dhul ay leedahay shiidlo asal abtirsiimi ehelna u leh ay cid ay ka heebaysanaysaa habeeraatay aysan jirin waxaan halkan baaq ugu dirayaa suldaanka guud gobolka shabeelaha dhexe suldaan Axmed Rashiid Colaad waxaan ku leeyahay baaqayna hadduu ilaahay kara noqdo suldaan in macnaa hadduu ku soo gaaro sidii uu dhaqsiyaa baan macnaa ay ugu soo jawaabtaan waxa kaloo baaq halkan ugu diraynaa gudoomiyaha arrimaha bulshada mudane Saalax Fuleel Xaaji Daahir degmada Mahadaay waxaan halkan baaq ugu dirayaa nabdoonada sagaalka gobol beelaha jareer weyne waxaan halkan baaqi kale ugu dirayaa xildhibaanada guud ahaan ee jareer weyne ee ka tirsan sagaalka gobol ee matasha jareer weyne ee ku jiro golaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya baaqaasoo macnaa hadda maanta aan ugu soo horjeedno ninka hadda maanta loogu magac daray airportka Jowhar waa shay macnaa xun aniga aan ogoleen aan siisanin aan qaadan doonin waayo dhul waliba nin ayaa iska leh waxa faataa dhugo oo lagu wadwado meelaha ay dadkan iska soo aasaasan ama jeebkooda ay ka soo baxsadeen aniga qaadan mayno mana noo cuntanto haddii aan ahay beelweynta shiidlo on ku hadlayaa codka dhalinyarada qoomiyada jareer weyne waxaan idin sheegayaa ninkaasi meesha lagu magac daray ee Maxamed Cumar Xabiib Maxamed Dheere ma laha ninkaasi waa baadil waa dulmi oo maanta adiga dadkeena loogu soo bareerayo oo cabsi in gabasha amadna aan lahayn waa dad baneystay macnaa adeeg xuquuqda iyo macnaa nafsi inay ka galaan qoomiyad jareer weyne laakiin macnaa waxaas inaysan soconin ayaad ogaanaysiin waxaan idin sheegayaa maamulada macnaa adeeg ugu sareeyaan madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa golaha shacabka inta wadaneynaysa maslaxada gobolka shabeelaha dhexe barnaamijkaasi meesha ka socdo gobolka shabeelaha dhexe inuusan cuntumaynin aan yeeli doonin meeshaasi dhibki ka dhaco waxa mas'uuliyadda qaadaya mas'uuliyiinta maanta madaxweynaha uu sareeyo ra'iisul wasaaraha oo kamid yahay inaysan cuntumin dhul waliba qof baa iska leh dhulkaasi dadkoodu waa anaga magaca loo magac daray boqortooyo baan leenahay jareer weyne halgamayaal bay leeyihiin waa in loogu magac daraa murid macaan oo kala kamid ah waxa kamid ah alxamdulillah arbuu oo kala kamid ah waxa kamid ah على شوبله ما شاء الله شوبله على شوبره ما شاء الله
hadduu alla kuuro macni halgamayaal badan ayay leeyihiin jarar weyne abuukar muude hadduu alla kuuro yahay waxaa kale oo ka mid ah mudan abuukar muude marka waxaa muhiim ah boqortooyada macni soo halganta dalkeena Soomaaliya jarar weyne waa dad muuqdo laakiin waxaa jeceshiin in mar walba aragta marada ku qorsin cagta hoosteeda aad gilsin waxaas waxna cunto ma amano soconaya habanaatay ma jirto waxaan baaqan ugu dir waxay tahay suldaanka guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe Suldaan Axmed Rashiid gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Mahaday mudan Saalax Fuleel hadduu al guriga xildhibaanada macni golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya nabadoonada gobolada sagaalka gobol ee dalkeena Soomaaliya ee jarar weyne in ay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo midnimada gobolka Shabeellaha Dhexe yeelimayna baaqeen hadduu idin soo gaaray sidoo dhaqsiya badan maanta taariikhdu waa 27 bisha 3 2020 baaqeena waxaan jecelahay hadduu idin soo gaaray hadaa wax sidoo dhaqsiya badan lagu soo jawaabayo dibka ka dhac Shabeellaha Dhexe mas'uuliyadeeda inay qaadayaan maamulada ugu sarreeya gobolka Soomaaliya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka Maxamed Cabdi Cumar oo dhankayga fadhiya soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم ودوهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولا ليال حلقا وحن باقو قدريا كأن جوجا متك مقام هدان جوجنا دلك هدان جوجنا دبيد waan isku kayna mid dadkeena inaan garabka isqabsano mideeda kale dalkeena si kasta hadaad noo gumaadeen aan idinka yeelni midan idinka yeeli doonin waxa ah dalkeeni aan ku nooleen noogula yaqaan hadaad ciid kor naga saartiin annaga waa noolnahay midan yeelayna ma aha waa ka soo horjeednay halkan waxaan baaq uga dirayaa dadkeena mas'uuliyiinta noo ah haddaan nahay beesha shiidlo ma ogolaa doono mana yeelayno waana midan ku hortaaganahay naf iyo maal aan u hurno midas nagu wadin mid soconaysa ma aha si kasta hadaad nala dhaqanteen oo idinku dul qaadani dulmiga waa naga deylaadihiin insha Allah allana inaan tala saarno oona iska keen dhicina nagu ballan iyo axdi ah rabbiga subhanahu qaadirka doo raali ka noqdo marka aad u maasan tahay dabcan gudoomiyaha su'aal ayaan weydiinayaa waxaa jiray ninka hadda lagu magacaabay garoonka magaalada Jowhar ee Maxamed Dheere dabcan kama mid ahan dhulka dadka leh dadku soo halgamay dadka la walaala shiidlaha ku sheegtay jiro dhulkaas xaq u leh dabcan maxaa waaye maxaad isdii kartaa asbaabta keentay in qof aan meesha u dhalan aan iska lahayn loo magacaabo asbaabta keentay aan rabaa in shacabka ka qaado gudoomiye soo dhow ما شاء الله waxa keenay asbaabtaas lagu magac daray gobolka Shabeellaha Dhexe garoonkeeda Jowhar waa wax oo baadil ah oo dadkani bareysteen xuquuqda iyo maanta dhulka ay leeyihiin qoomiyad jarar weyn guud ahaan jarar weyn oo dhan meel walba ay dhul iyo dhaxal ay ku leeyihiin inay macni maanta ay daboolaan wax ay macni alxamdulillah maanta ay ayaga jabkooda ay kasoo sameysteen oo xaaraan oo baadil oo dullinimo ah ma fahanti anagana riyeeli meena xaaraan barnaamij wax biligo aqabad walba dhibaato walba waa inagu soo suubiyeen dulqaad badan oo u sameeyay laakiin hadda midan tan waxaan leeyahay waxay ugu magac daran waxay tahay in ay sameeyaan shini qol ku jirtay oo qori ku juqjuqeen laakiin waxay ka helaan ay leeyihiin dadkan waxay ka helaan ay leeyihiin waa wax oo macni baadil ay baneysteen oo isbareen siyaasiyiintu hadii tahay hadii yihiin macni shacbigooda kaleento waa dad macni baneystay xalaash xaraanta aan kala baxsaneen aniga sayeli meeno xalaal iyo xaraam aan kala baxsantaa waxay falan waa fali karnaa laakiin tii dabo ilaahay ka cabsatay aakhira mar walba aan dib u fiirnaa hadduu ilaahay garan noqdo insha Allah aad u maasantahay aan kaga mahadcelinayaa qaabka quruxda badan ee barnaamijka ay ka qaatan baaqan aad ugu darteen waxaan jeclahay in walaalihiina ku sugan dowladda federaalka Soomaaliya iyo nabadoonada suldaanada inay baaqasi ka soo jawaab celin doonaan doo eeba kala noqdo daawadayaal guntii gabagabada barnaamijkan ka soo gaarnay aniga Maxamed Qaadir Xuseen ayaa barnaamijka si toos ah in la sii socodsiinayay waxaa ka qayb qaadanayay gudoomiyaha ururka horumarinta Jimwabe iyo ku-xigeenkiisa barnaamijka baaq nabadeed ama baaq maxaan ku yiraahdaa falcelina ugu diray walaalahooda ku sugan ku kala sugan maxaan ku yiraahdaa suldaanada iyo nabadoonada iyo xildhibaanada beeshooda ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay qala billahi tawfiiq wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh